السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا xubintan ciyaaraha ee warka telefishinka qaranka Soomaaliya. haddii aynu ku hormarno xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliya ayaa koob isdhaxgalka bulshada ah waxa uu dhex dhigay labada degmo ee dariska ah waa degmada Boondheere oo iyadu koobka martigelisay iyo degmada Yaaqshiid koobkani ayaa xiriirka waxa uu ugu talagalay isdhaxgalka bulshada iyo nabadda iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xoghayaha iyo gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo fara badan waxaana halkaasi ka dhacday ciyaar xiiso badan oo ay ka maqsuudeen dhammaan daawadayaashii ka soo qayb galay iyadoo waqtigii loogu talagalay kulankaasi ay guusha raacday degmada Yaaqshiid oo iyadu marti ku ahayd gudaha degmada Boondheere oo ciyaartu ay ka dhacday xafladda koobka lagu gudoonsiiyay oo isla degmada Boondheere ka dhacday ayaa waxa ka hadlay xogayaha xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliya Xaaji Aadan Cabdulle waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan rabnaa dhalinyarada sida ugu quruxda badan ee maanta ka soo qayb gashay barnaamijka iyo kuwa dambe oo ka soo qayb gali doona magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inaan siino in ka badan 10 kun oo ciyaartooy fursadan oo kale oo koob mini football lagu qabo doono degmooyin gobolka Banaadir ee 17 degmo ah marka waxaan rajaynaynaa in dhalinyaradaas markay ka soo qayb gashay ciyaaraha mini football ka tirada inta leeg 10 kun kor u dhaafaysa in nabadgelyada magaalada Muqdisho ay wax ka bedesho insha Allah hadii la yiraahdo waxaan kaloo jecelnahay in dhalinyarada isticmaalo drugska sida qaadka xashiishka koolada iyagana ku soo biiri doonaan insha Allah taala mini footballka kaasoo u horseedi doona gobolka Banaadir iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya nabadgelyo loo aayo insha Allah taala waxa kale oo ka hadlay xafladdaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Cismaan Aadan Maxamed Dhuugo waxaana uu ugu mahad celiyay dhalinta labada degmo iyo ciyaarta quruxda badan oo ay kulliba waxaan maleynaa intii ciyaaraha daawasho iyo fikirkeeda qabtayba in meesha ciyaartooy muuqaal ay joogaan baa taa ayada mahad Ilaahay leh waa idinkaga hambalyeynaya ciyaar wanaagga marka hore oo labada qayboodba sameyseen waxaan si gaar ah uga hambalyeynayaa kooxda sida gaarka ah maanta u qaaday koobka Yaaqshiid aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mas'uuliyiinta sida gaarka ah xilka isaga saartay hawshan ayada oo xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliyeed oo runtii dadaal badan oo aan la qarin karin ka wada gobolada dalka iyo degmooyinka magaalada Muqdisho qaar kamid ah hadda wax badan ka bilaabay anoo mahad gaar ugu celinayay gudoomiye ku-xigeenka oo jooga Cabdixaaq iyo xoghayaha guud Aadan Yare tartankani ayaa waxa uu noqonayaa kii afraad oo isla bishan gudaheeda ay uu qabto xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliya waxaana xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliya uu fursad weyn siiyay dhalinta da'doodu ay ka yartahay 20ka waxaana xiriirka kubadda cagiraha Soomaaliya uu qaban doonaa horyaalo kala duwan oo uu qaban doono degmooyinka dhanka kale kooxaha kubadda cagta Hegan iyo kooxda kubadda